السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وايد سلام سida u dhantihiin. waxaan idin rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtaan. Videogan like noo saar insha Allah. Channelkan hadaa ku cusubtaa subscribe, comment iyo share intaba. maanta waxaan soo sameeyay video aan mataqaana caruurta waqti la qaadanayo, waqti aad iyo aad u fiican, quality time. haddii aad maqasheen waqtiga caruurtaada la qaadatid familygaaga maasha Allah. waxay ahayd weekendigi waan usoo qabeeyay walaashay iyo gabadhayda yarista ah oo la joogtay. markaan u qabeeyay timaha u qalajiyay oo timaha usoo xirxiray labadoodaba, waxaan keenay qolka markii aan keenay waxaan usoo sameeyay mataqaanaa oo anigan aan soo samaystay face mask ayaan aniga hada soo diyaarsaday. waad arkaysa face mask waxaan ka subsaday kafe iyo malab. mataqaanaa face mask kaleeto asagana mataqaanaa oo xumba face mask amarsanaysa ma ahan mid yar ku dhaqanayso wax yar markuu 5 minute camal wajiga kugu yaar asagana iska dhaqaysid. soo marka kafe iyo malabka ayaan ka bilowday. markii wasaqda iga qaadeen xoogana kaas ayaan soo marsaday, maadaama aniga aan wax sameysanayay oo ani nafteyda aan daryeelay. of course nafta caruurta in la daryeelo waaye, marka wax gooni ma u qaban caruurta, anigoo wax gooni u qabanin ayaana ka farxinayay. videoga ayaan ku arkaysin ilmaha muhiim waa in ayagan waqti la geliyo. marka aad guriga quruxsatid ayagana gurigooda quruxsid, qolkooda ayaan ka wadaa. marka aad is quruxsid adiga ayakan aad quruxsid. meeshan waxa igu jiro rinjiga cidiyaha la mariyo oo ay riiska ee caruurta loogu talagalay. rinjigan waxa waaye HM-ka ayaa gado peel off ayaa la dhahaa. wuu fiiqmaya hadda cidid marisid markuu qalalo saas ayaa u fiiqi kartaa. waxa kale igu jira kareen oo lugaha la marsado, vaseline ayaa igu jiro, jar ayaa igu jirto, yani wax yar oo ilmaha ay leeyihiin, iyo shukumaan yar oo aan soo diyaarsaday oo aan meesha wasaqda iyo waxyaabahaas meesha wax ugu marinay caruurta aan ka ilaalinayay. marka maadaama uu soo qabeeyay oo soo hagaajiyay oo madaxii kasoo dhaqday, waxaan rabay inaan mataqaanaa wax yar oo ilmaha ay ku farxayaan anigana aan ku sii jeedinayo oo caruurtan aan waqti ku gashanayo oo ku sheekeysanayno. waxaan markii aan sameynayno only mi iska sameynayo okay waa ku sameey iska bax ma jirto, waa wax aan ku sheekeysanayno. hooy kaas maxaa sameysaa, kan ma ka heshaa adi, maxaa kaloo ka heshaa, ad maxaa jeceshahay, ad maxaa akhrisaa, maxaa sameysaa, yani canuga information aan ka raadinay. yani adigana way ku fiican tahay, ilmaha si fiican ay u baranay, waqtina waa isla qaadanaysiin oo ma noqonaysiin ilmo oo muhiimada cunto cunid iyo dhaqdhaqadii seexis iskugu imaada bis. meeshan ayaan u diyaariyay, meeshan waa idila soo wadaag sida u samaystay jawi yar oo degan. shumac xataa waa usoo shiday si ay mataqaanaa special dareema caruurta. shumacaas ayaan usoo shiday, jawigan degan aad arkaysiin, xoogaa galabgaab ayay ahayd. meeshood ayaan soo fadhiisiyey. meeshan ayaan dhahay isoo fadhiistay isoo dhawaada, maanta ani adinka waaye, waxaa waaye waqtigeena waaye, ma fahanteen. yariseed aabaheed ayaan u dhiibay, soo gabadheyda weyn iyo walaashay iyo aniga waxaan qaadanaynay maasha Allah waqti aad wanaagsan. hadda sida arkaysa shukumaanka ayaan soo fidsaday, cidiyaha ayaan ka jaray. cidiyaha actual wax aan mar walba sameeyay waaye, laakiin hadda waqti yaro extra ayaan ugu daraa inaan lugaha kareen u mariyo, inaan rinjeer u mariyo. laakiin cidiyaha weekend walba waan jaraa markay soo baxaanbo. laakiin hadda maadaama aan waqti haystay oo guriga aan joogay maantay oon shaqaynaynin, waxaan jeclaystay bal ilmaha waqtigeyga ani aan haystay alxamdulillah ii barakeeye in aan caruurtan aan wax ka siiyo oo iyagan ay u fahmaan ee dareemaan in caruur waqti la gelinayo ay yihiin. yani inta mar walba waqti la iska haysan soo ma aha, marka yar oo waqti la iska haysto ayaan waqtigooda uga faa'iideynayay. had sida arkaysan cidiyaha ayaan kasoo jaraya. cidiyaha markaa kasoo jaro wax yar waxaan usoo marinaya rinjigaas caruurta sigsaamaha haday gashtaan wuu baxaybo. sigsaanta marka ay gashtaan uu qalalo waa rinji fiiqmaayo, waa asaga dhanba one time waaye, wax meel ku halaabay ma aha, asagoo fiiqma ayaadna arkay. hadda ismarisid oo jikada tagtid alaab aa dhaqdid wuu kaa fiiqmay. soo waa loogu talagalay caruurta, wax ku dhigaya ma ahan, chemicalna kuma badno. marka waan u mariyaa maalinka iyo beriyo kale iskuulka aadayso oo saan waqti u haysto. maalin walba actual waqtigaas lama helo, soo halka maalin aan waqtiga hayay waan sameeyay, waa u mariyay. anigana inta ayaka u sameynooyo, anigana wajigay waxaa ii marsan bahalkaygii maxaa la dhahaa kafeegayga iyo malabkii aan isku soo qastay. ayagana waqtigooda ayaan gelinoyaa maasha Allah sida arkaysiin. wallaahi ilmaha habigay noqonayaan, farxaday dareemayaan, wax laga sheekeyn karo ma ahan. hadda waxaan usoo mariyay lugihii kareemkeeda ayaan usoo mariyay, waa usoo dhameeyay. gacmaha mar walba waxaan aad u isticmaalaa Nivea kareem aad ayuu u fiican yahay. wuxuu leeyahay subag dufan aad u badan, soo dufankaas wuxuu sameynaya maqaarka jilicna wuu kaaga dhigayaa. saliid oon dhaqsi kaa tirmeynin
ولي هذا نيفيا بينك وكلا مرستيد صبح انت ويسقاتid حتى waa iska bixi kartaa you don't need inaa mar kale kareen marsatid marka waa kaas nivea ayaan usoo marinaya wax yar yacni waxay isdhowsaa maanta qatar hooyo kareenka iyo marsanaysa ku marnoosa yacni niveaha ayaga kareen ay leeyihiin oo bila caraf nivea maadaama uu caraf subax walba uma marin kari marka aniga oo marsado badana niveaha وانا اسكالي marka way faraxsan tahay wiiristeed waxay leedahay ma sha Allah maanta hooy kareenkeeda li mariyane qofkii guriga joogo dhan way u tagay waxay maanta aniga ori kareenka hooyba iga carfooy aad ay ugu faraxsaneed ma sha Allah ina ka farxiyo ay aad muhiimadeeda anigoo wax badan sameeyay hadda arkaysi wax gooni ma sameeyay timaha ayaan ka soo dhaqay waa u soo dabay faasalin ayaan afku mariyay especially bas ku dareemusa faasalin ayaan afku soo mariyay faasalinka meesha noogu jiro waxa u soo sameystay salad yariis oo alaabta aan ugu xafido si iga kala dhudhumin marka asaan oo kala waqti u leenaa soo baxsanaa ku baashaalno marka yariisayda dawaan habeey waa u jeedin meesha waxa soo gali walaashi aydan aad uma weyn iyada xataa actually way iska yartahay soo aydan ma sha Allah saasa aydan ku soo sameeynaayay sida arkaysiinba iyada waxaan u mariyay rinjigi cidiyaha kadibna waxa cidiyan ka soo jaray rinjiga waan u mariyay waxa iska jari kartaa actually laakiin gabadheeda ayaa waxay dhahay walaashi Caaisha ma u sameeysid aniga maxay ugu sameeynay soo wax isla siman ayaan ka dhigay rinjiga ayaan u soo mariyay cidiyaha ayaan ka jaray haddana food creamka ayaan u marinayaa marka sida arkaysiin yani wax yar iska simple waaye caruurtana waqti ku soo gelinaysid oo ay kana ku farxayaan ma sha Allah aniga aad ayaan u jeclaa marka ilmaha waqti geliyo waxaan dareemayaa waqtigaas inuu iga qasaarin oo meel maala yacni ama meel munaasibka ah inuu iga qasaarin laakiin ku baxay caruurteyda ما شاء الله وقتي إيسو هارو وعبادتي شقة جورجي عشرات دي سكول كي إيسو هارو I love إنهم كبحيو جورجي عروستي ده الحمد لله تاسني لا وقم هذينا يا إنه يوين كادين كان سيدو قالوا هذا كله تلنا إن عروت وقت جلسين وحير أو إسكف فضد أيه بحي وأركيان واح إسبيشال أو آد وين إيجان ويكفر هنا actually أدينا دان أيه كوتهاي أو المها ممكن كفر حسين ما شاء الله أدينا نيد أيات كفر حسن تهاي marka waa kana hadana yiri walaashayda yirist ayaan u marinay idana kareenkii gacmaha sida arkaysiinba iyada wixii intii aan yiristeed u sameeyay ayadana waan u sameeynaa saa arkaysiinba marka gacmaheeni cidiyaheeni afaareen noo soo dhamaadaan oo alaabtii aan meesha keenay soo xareyno waa arki doontiin asagana step ku xiga aan sameynayno this time waxa waaye quality time I love this time yiristeeda hatta oo babyda way ii hurday xoogay marka ii hurdaydana cidiyaha ay naftirkeeda waa ka soo jaray waxa waaye midaas yiriiste ayada soo jeed kama jiri kara cidiyaha sidaan kale tameel igu fadhiisato qof ifiirinayo ama idhageysanayo cidiyaha aan ka jari kara ma ahan hadda sida arkaysin alaabta ayaan meesheed ku soo aruursanaya boxkan yiriiska meel kor ayuu ii saaran yahay waxa waaye gabadheed marka la good job ayaa sameysay ama maanta waa laga shaqeynaa bis ala soo dejiyaa otherwise meelaha iska ma yaalo asxaabe boxkayga markaan soo xareystay oo alaabahayga dhan aan kasoo aruursaday meeshaas oo cidiyaha aan jaran tiishka aan kusoo guray meeshan waxaa ii yaala cabitaan aan soo shiiday cabitaanka waxaan kasoo shiiday qofka u baahan cambe iyo wax yaroo malab iyo sabiib waa taqaani soo ma ahan iyo sabiib ayaan kasoo shiitay fruit ayaan usoo jarjaray wax yaro buskut iyo wax yaro nacnac ayaan usoo qaaday waay nacnaca waxaan isticmaalnaa weekii mar yacni nanac oo maalin kasta la iska cuno ma ahan waa arkaysiin hadda quruxda iyo farxadda filin oo ilmana waa u shiday meesha ayaan la fariistay wax yaro filin babeen oo ilma ayaan u shiday waayo maanta camal ilmaha ayaga ayaan waqti gelinayay wax gooni ma bareenin waxba kale uma aqrinaynin aniga yacni sharciyadeedii dhan aniga aan hooyo ahaan u ahay ma samaysanaynin maanta waxa aan sameynaa only thing aan sameynaa waxay ahayd in aan ayaga waqti geliyo maasha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taa waqti soo galiyay oo waxaan soo dhameysanay fiid hore aan taa soo fadhiisan cabitaankeeni waxaan taa soo qaadanay aan meesheena jawi degan ku haysanayno yacni waa arkaysiin wallahi siday u farxeen ilmaha ay u farxayaan marka sidaan kol waqti u gelisid wax laga sheekeyn kara ma ahan walaalayaalow hooyeen hadaatiin dhageysanaya hadda noqon doontiin intaasba waqtigaaga caruurtaada gali waqtigaaga meel kale ma yacni ku dhimisid waxba ma ku taraayo caruurtaada cibaadadaada ilaahay ka cabsigaaga waxa ku waxbarashadaada wixii ka soo haro yacni inaad muhiimada ka hadashid oo muhiimada aad ku samaysatay ha ku ahaado waqtigeena caruurteena galiya maasha Allah waa u jeedin maanta yacni aniga markii shaqada guriga qadada guriga iyo cashadii waan iska soo boobsiiyay oo gees iska dhigay
waxaan samaystay inaan u qabeeyay timihii habeeyay cidiyihii ka jaray u yara qurxiyay cidiya inkastoo rinjigaas uu beri gaareen beri markay gabadheed iskuulka imaataba malahanba wuu baxay rinji meeshaana la mariya xataa isma dhehaysid waa rinji yaroo ilmaha loogu talagalay itusaa la dhahaa intaasay arkayan unbuu ku dhagan yahay marka meeshaana nanac iyo waxaas ayaan usoo saaray inkastoo wixii markay arkeen batirada indhaha ay cuni waayeen wixii dhan yacni laakiin waa ku qanciyay waa kanaa soo dhawaada aan dhaacawada adika iskale magaalka marka I wish inaa videogan ka hesheen asxaabteeda sharafta leh waa video aad qurux badan waa quality time haddaad maqasheen waa sidan oo kaleeto ilaahay markaad ka cibaadaysato cibaadada ilaahay kuu dhamaato waqtigaa kaleeto caruurtaada iyo gurigaaga inaad quruxsato gishta insha allah waxaan idinkaga tagayaa kheyr badan iyo caafimaad intaa video dambe sidan oo kale ku kulmi doono